dhakhaatiirta Soomaaliya saama u dambeysay vitamin B12 allaha marka waxa loogu talagalay in loo isticmaalo dadka qaba qalalka 24 saac ugu dambeysay madaxweynaha Soomaaliya lagu dhaganaa ilmahayga familiga reer xasan sheekh in badan oo kamid ah waa weynaadeen waxbarasho jaamacad ay ka baxeen wallahi sheekh waru keenay ya seerka ay ku sabarto wadaadka ay ku dhiman reerkan ay u dulqaato waxa weeye waxay loo qorayaa ka ajri shahiidan fi sabiilillah laakiin noocan oo kala haynaa ka waran wiiga tagay nagu wiiga raacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قلبك شخصياتك قلبك وناكسن انت سماع وصاحبك بقر تويد باحد وين سلام إذا بصوا بلاينا وذا إدين سو مرسيي فضلا جنال كادوك عصب تاي لايك شير كومنت سبسكرايب رود تو 1 مليون لبدا بروا إذا كمشغولة اتحامات الله لكن وإدين سو لابتي بقر توي in the house ما انتو حان إذين هاي الرياكشن بوقي صوت دقاتيرة الصومالية ساما ودن بيسي سيدا gudoomiye waxa way kaniini markii horeba loogu talagalay vitamin B12 allaha marka waxa loogu talagalay in loo isticmaalo dadka qaba qalalka hadartan qof caadi oo qalal aan qabin isticmaalay ka bacdi wuxuu noqonaa qof iska taagan qofki oo aan nuuxsahin ama qof si qaab dar u taagan oo saas u taagan oo kale noqon hadda qofkii vitamin B12 cabo ya korontada ka tagaysa ma geed camal oo iska taagnaana waa kuwa dhaqaatiirteena ya سكبة فيتامين بي 12 عن عبها هالمرة واكرها فيتامين بي 12 وعوي وسو تاجمي كدولة ورا علمي قام وحي كبر نو شيء أنا يا دكتور برانك إعداد مغشيت صوماليا كيلي gudoomiye waxa way kaniini markii horeba loogu talagalay vitamin B12 allaha marka waxa loogu talagalay in loo isticmaalo dadka qaba qalalka kanoo kala qof kilida laga hayo loo geeyna ama wadnaha laga hayo laba isbuuc kadib waa dhintay lagu leeyahay maxaa waay ma yaqaanay ma yaqaan isticmaalay ka bacdi wuxuu noqonaa qof iska taagan qofki oo aan nuuxsahin yaabkaasan haynaa 24 saac ugu dambeysay madaxweynaha Soomaaliya lagu dhaganaa social media baalaha laga rif bal فيديو sababay in madaxweynaha lagu dhago hal mar ila daawo ilmahayga familiga reer xasan sheekh in badan oo kamid ah waa weynaadeen waxbarasho jaamacad ay ka baxeen dhowr iyo 10 jaamacad ka baxday laba science ka baratay laba dhaqaatiir ah oo by profession dhaqaatiir noqdeen inta kale dabcan xisaabiyaal iyo finance dad bartay iyo IT iyo way ku jiraan laakiin haddana qaarkood psychology bartay qaarkood law bartay qaarkood hadda history inay bartaan u socdo qaarkood maxaan ku raadayay public relation bartay qaarkood way socdaan anigana waa ku dhiirigeliyaa maadooyinkaas runtii socialka ah inay bartaan waalidiinta Soomaaliyeed yani madaxweynaha waxa la leeyahay iyadoo wadanka xaalad adag uu ku jiro ayuu wuxuu ku faanayaa ilmihiisa waxbarashadooda iyadoo boqolaal Soomaali ah ay maanta waxbarasho la'aan yihiin nimayo midaan la yaabay miyuusan madaxweynaha ahayn aabba Soomaaliyeed koos aabba walba wuxuu jecel yahay ilmihiisa inay guuleystaan oo waxbarashada heer sare ay ka gaaraan marka hadduu ammaanay ceebta ku jirta maxay tahay inkastoo laga fiicnaa madaxweynaha iyadoo dadka qaar ay xaalad adag ku jiraan for example gabadhan oo kale waxbarashay aaday ya intay waxbarashada ku maqnayd gurigii ay ku nooleed dhana la dudumiyay dismoral niyajab qalbi xanuun ayay ka qaaday laakiin aabba Soomaaliyeed inuu ilmihiisa ku faano ani wax weyn muu ark bal aragtideena la wadaaga muuqaalka waa iga yaabiyey wuxuu iga yaabiyey challenge noocan oo kale dadka bini aadanka ku fikiraya yani hadda may soo baxeen bal hal mar ila daawo muqdisho amara taagan حافظها لابيريا الله شرموطة قصة بين قصة باول قصة ده حافظها السواقش برتسا ويستع بس نوع بالنوع وحول بمقدشو أركي يا يعني شيد يحبط وحبرش الآن مركي كو كولانتو أقليات هذا وحين نقولنا وحول بينه يكون فكرته هذا استرسا وحال اسكيجي بابينو إن مسكح يا دربيض الوقراع
jiingadii yaa dilaacday iyada jiingadii yaa bayaabanba waxay leedahay dadka noocaan oo kale intay ka imaadeen xaafadan waan ciqaad marka dhalinyartaa waa dhibayiin dhalinyarta ishaa lagu haay muuqaalkaani in badan waa ku qosli aniga bal sheekh xasaan hal mar ila dhegeyso inay haddii lala guursado masayrto masayrka ay ku sabirto wadaadka aysan ku dhiman reerkan ay u dulqaato waxaa weeye waxay loo qorayaa ka ajri shahiidin fii sabiili illah hawl sahlan ma aha maxay waxaan waa khariisa bashariya fitra wey haweenku marka waxay u kala fiican yihiin inay isxanimaan oo dulqaataan beri hadda waxaba joog kuwa ayagu gabadhi iska sabriyay u kabagelinaya hadda nairobi maxaa ka jirta ma taqaanaan idigu xer baatiini gabadhi lala guursado haween u soo barorto la ooyaa jira wallaahi sheekha war uu keenay ya hadda gabadhii xaas labaad haddii lala guursado ku sabartaa shahiid oo kale waa miya waa ahlu janno sheekha laakiin noocan oo kale haynaaye ka waran wiiga tagay naag wiiga raacay hal mar le ugu sheekeeyey ani sheekadaada le sheekho hal mar ugu sheekeeyey caray isku shubtay cara waxaaba kaaga daranba tii kale aan qisadan ugu sheekeeyey sheekho saanay noqotay ninayba gurigeedu ku gubtay ayaa ninkeeda naag guursaday guriga gubtay xitaa dariskeyga sheekho saanay ay leeyihiin markaan ka hadlay xaas labaad وينه ما درجه بوس نرقضه الماء يسادنا ميا sheekhow waa jannadan waa ilaahay meel dhawaa naga siiya dumarka taagan yihiin intaa marka ka gudubno waxaa iga yaabiyey maamadan kongaleeska ah qisadeeda hal mar ila daawo My name is Francine. I'm 50 years old. I gave birth to all 53 children in just 17 pregnancies. Here's how. I had quintuplets twice, quadruplets 3 times, triplets 4 times, twins 5 times, and single births 3 times. That's 53 children from 17 pregnancies. And thanks God, all my children are still alive. yab annagaa aragnay maamadan waxaa lagu leeyahay 53 caruur ay dhashay yaa da'deedana meeqa way makasay 53 jir le kaliya ma xanuuna miya xundurtu ma xanuuntu miya qaska ma fuuro miya yaa badana 5 mataanay dhashay 3 laba warshadeeda kale istaag maba leebo ilmaheeda waxaa u malaysaa kaam dhan gabdhaha Soomaaliyeedna hal iyo laba markay dhalaa kaliya leegaya lugaha ma kici karo xididadii ay istaagay nerfiya eber bisikyo tolkeeda xataa qaaraan ka soo doonay gabadhii waa dish laba cunug la dhashay ka hor waa kala kam dhan wayda ilmeeda 54 la maro marka waa afrikaantan caadi ma aha annagana kuweena waxa lagu kari la laba le dhalalo bal muuqaalka xiga wiilkani waa wiilka kaliya diyaar u ah inuu waasho laakiin waalidiya waxay leedahay walaalo waqti kuma hayo dhowr jeer isku day inuu waasho maruu karfan iska xirto maruu sidaan oo kale yaa bacmadow isku joog iyo kaba ka tasho maalin walba wuxuu leeyahay walaa inaa waashaara waa markaasay leedahay waalida joog adiga stagekii waalida dhan waa dhaaftay ka waran adig dhowr jeer isku day waali ka badbaaday waalidiyaaba diidanba ninku maalin walba ku daydana waxaa la dhahaa diamond platinum asaaba qadayninba mar dhow oo kala kacday marka warnimayo ninkan qaabka ugu fudud lagu waalan karo hal mar baraba commentiga qaabka ugu fudud lagu waalan karo ilaa waalidiya diidan marka khayra idin dhaafi bye bye